الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لحقنا وبيوتنا وشهدنا وبعدنا وصلينا وكبيرنا وذكرنا الله أجره. اللهم بعده. أنت خلاص تمام. خليني كامل نطلع رئيس شيء. لو كان waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaan la hadlo waxaan rabaa qof kasta oo booliiska Soomaaliyeed darajo kasta iyo fadhi kasta ka tirsan yahay inuu noqdo farxaan oo kale waxaan ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Haramcad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyay ama aan ku dhawaaqayaa xarunta Haramcad ee Generaal Farxaan magacaas qaadan doontaan magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaashay daraaday ugu dambeysay halka wada joognay wuxuu tusayay ciidanka dhintay uu sameeyay kaarta uu sameeyay yiri hebel 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 magaciisi isaga iyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tiro inta ii sheegtay labadoodii aan ku daray aabay tirmaanta ilaahay ha u naxariisto shakhsi ciidankiisa jeclaa oo ciidankiisii ilaa shalayto sarkaalkan waxa lagu gartaa ciidanku xukumaa laga gartaa midna waxa leeyahay ilaah baa na dhaafiyay midna ciidankii si aanu maaraynaanu garan weyno ciidankiisa jeclaa madaxdiisa jeclayd shacabkiisa jeclaa magaalada xamar laga jeclaa ilaahay ha u naxariisto إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون طلسك عيدنك بوليسك الصوماليات qoyskii iyo saaxiibadiis ciidamada qalabka sida iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaan rabaa inaan halkaan tacsi uga soo gudbiyo geerida ku timid walaalkeen wiilkeennii Generaal Farxaan Qaroole iyo intii kale ee la shahiiday howlgalkii dalka looga sifeynayay kooxaha khawaarijta intii kula shahiiday tacsi baan u gudbinaynaa geeridu waa xaq laakiin waxa kala sharaf badan meesha lagu dhintaa kala sharaf badan wuxuu dhintay Farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadawga baacsanaya ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya ayagoo sharaftii iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed u taagan
ayay shahiideen waxaanan ilaahay agtiisa uga rajaynaynaa inuu u aqbalo shahaadadooda qoyska si gaara aabbaha iyo hooyada iyo xaasaska iyo carruurtiisiina waxaan leenahay sabar iyo iimaan allah ka siiyo iyo beddel khayr qaba waxaan rabaa fariinteeda ku xigtaa waxay tahay kooxaha khawaarijtu dee waxay caadaysteen inay ummadda soomaaliyeed laayaan aysan qofna u turin ilmaha yarka hooyada aabbaha shiikha odayga waxaana socda dagaal looga sifaynaya dalka arrinta farxaan taliyaha farxaan dhimashadiisa ma hakin doonto halgankii lagu xoreynayey kooxaha khawaarijta dalka loogu xoreynayay bal iska daaya waxay sii dhiirigelinaysaa carada ummadda soomaaliyeed u qabta kooxahaas waayo daday jecel yihiin taliyaalay jecel yihiin iyo wiilal la jecel yahay ayay faragashadeen oo dileen iyo odayaasha hiiraan ku dhintay oday cilmi guura uu ka mid yahay dhammaantood ehelada iyo kulliga waa u tacsiyanaynaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala dhiigga taliya farxaan iyo ciidanka kale ee qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed ee daadanaya inuu noqon doono kii dalka lagu sifayn lahaa waana yahay waana loo guntaday fariintii madaxweynuhuna maanta way ahayd sidaas waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ha u soo wada jeestaan in kooxihii waa dabacsan yihiin qaraxyo iyo miino iyo tabar ka dhigteen iyo qof isqarxinaya meeshii u dambaysayna marayaan waxaan leenahay waa la daba tiri doonaa insha allahu tacaala halgankuna waa siduu u bilowday dhiiggaanna waxaa lagu sifayn doonaa farxaanna meelo waaweyn baa lagu magacdari doonaa taliyaha waxaan dhihi karnaa waa geeri aad u xanuun badan laakiin waqti qof waliba waqti uu leeyahay asaguna waqtigiisu maanta ku ekaa waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto jenaraal farxaan annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo intaa kadib waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka banaadir inay maantay jenaraal farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadowga asagoo ka dagaalamayo meel ka baxsan gobolka banaadir ee caasimadda lana dagaalamayo kooxaha argixisada waxaan rajaynayaa in qof weliba uu dareemi doono in cadowgan haddii aan lala diriirin in qof weliba loogu soo gelayo gurigiisa waxaan leeyahay iyadoo lala diriraayo oo goobahay joogaan lagula diriraayo ha la dhinto hana la dhaawacmo taasaa sharaf iyo sumcad leh waxaan leeyahay maantay waan jeclayn inuu joogo uu noolaado laakiin meesha uu ku baxay wuxuu ahaa shahiid in qof weliba haddii aaba dhimanayso inaad saas u dhimata habboon